waxaynu u diyaargaroonaa Britain haddii ilaahay yiraahdo dabaaldega statementki May oo ka soo wareegtay 4 sanadood maalintii aynu dib u soo ceshanay xorriyaddeena waxaan ka codsanayaa marka hore dhammaan Soomaaliland meel ay joogaanba gudaha iyo dibadba inay u dabaaldegaan dhammaantood oo ay muujiyaan dareenka qarannimada Soomaaliland iyo geediga dheer ee lagu soo jiray halgan iyo dood iyo sharciba aynu 34 sanadood taagna xorriyadeena inaynu ka helo caalamka waxaan codsanayaa dhammaan shacabka Soomaaliland inuu isu soo baxo muujiyo dareenkooda si weyn u dabaaldego isaga oo u midaysan arrinta qaranka Soomaaliland meel gaari maayo haddii uu si qaybsan ugu dabaaldego ku dheeraan maayo taariikhda halganka maanta waynu wada ognahay laakiin daayirta wuxuu loo sheegayaa halganka inta ku baxday naf iyo maal leh kama yaraan karto maanta haddii dib loo xisaabiyo si dhab loo raadiyo dad aan ka yarayn nus milyan inay ku dhinteen ma filaya sababtoo ah barigaas 88 markii magaalooyinka la baabiinayay hay-adaha qurumaha jimcada qurumaha ka dhaxaysa waxay sheegeen in ay ku dhinteen 50,000 oo qof oo shacbi dagaalkii magaalooyinka Soomaaliland state kaliya oo ahaa muddo 4 bilood haddii laga soo bilaabo dadka shacibka u dhintay darxumada iyo kuwa guryahoodii lagu laayay markii loo soo noqday lafahoodii loogu yimid guryaha kama yaraanayaan dhowr boqol intaa waxaa dheer ciidamo kuma oo muddo 10 sano halkan ku jiray oo dagaalo badan ku socdeen kuwa dawladdii Siyaad Barre marka la isu geeyo kama yaraanayaan dad dhowr boqol ilaa 500 ku gaaray inta dhibatay waana taariikh dhaw u baahan in la raaco la ururiyo waxay intaa dheer intii dalka la soo galay ilaalintiisa ciidamada ku dhintayna boqolaal kama yar ama ku dhawi 34 sanadood baa la daafacay dalka oo ciidamada ku dhimanay oo cadow badan baan lahayn Soomaaliland cadowgeeda koobaad oo ah hadba siyaasiga xamar ka taliya waxaan filayaa shacabka Soomaaliya inaanay ku wada raacsanayn ama intooda badan ay ku raacsanayn colaadda aan la garanayn halkaa waxa gaarsiinaya siyaasiyiinta fila Soomaaliya iska bedela ku dheeraan maayo waa taariikh imka dee waa tan la helay internetka oo ku yiri ku inoo wada akhri kartaa waana waajib dadka Soomaaliland ee da'da yar ee aan goobjoogaha wixii soo dhacay inay research badan iyo baaritaan badan ka sameeyaan si ay u fahmaan waxa ay isku hayaan u dambeeyay Xasan Sheekh dawladda madaxweynaha ka yahay iyo isagu sidii uu u yimid hawl kala muuqaba 4 sano uu xilka hayay kursiga fadhiyo waxay kaga dhamaadeen dagaalka Soomaaliland kula jiray qaar kale ku horeeyay la midbahay shacbiga Soomaaliland iyagoo taa arkaya gudaha iyo dibadba oo waxa lagu dulimaad yahay ay tahay xorriyadooda iyo in dalkooda iyagu ka taliyaan oo qaaradda Afrika la mid noqdaan oo dal waliba uu ku nool yahay oo uu ka taliyo oo lagu ictiraafsan yahay xuduudii isticmaalku ka tagay Soomaalilandna waxa aan ku boorinayaa oo ku dhiirinayaa inay taageertaan oo u midoobaan qarannimada Soomaaliland haddaba shacbiga Soomaaliland waxaan leeyahay meel uu joogaba muxaafid iyo mucaarid dantu waxa ku jirta in loo midoobo qarannimada Soomaaliland
si aynu adduunka meel uga qabsano taa intaasaan ku dhaafaya waxaan siinayaa xaaladda Soomaaliland gudaheeda horta xaaladdeenu waa wanaagsantay dowladda cusub baa timid mucaarad miyir qaba ayaa jooga oo aad u xodhowraya labada mid hal baan oranaya mucaaradka waxaan leeyahay haddii aad ku kacdaan wixii aad ku eedeynayseen mucaaradkii shalay oo dowladda maanta ah oo aflagaada ah af iyo adinba wixii xumaanahay ah nimankaa ku dhaleyseen haddaad idina la timaadaan waxay noqonaysaan isma dhaanto iyo dhagaxun sidaa daraaddeed mucaaradka maanta waa inuu noqdaa daldhis ta qaran xeeriyaa dhaliisha iyo canaanta uu soo jeedinaya xukuumaddu way noqotaa mid run ah ku salaysan xaqiiqo ah oo nasteexa ah war ka daatan taasaa ka toosan xukuumaddana waxaan leeyahay haddii idinkuna aad la timaadaan wixii aad shalay ku dhaliilayseen dowladdii shalay ee xumaanta ah ee aad ku tilmaamayseen dowladdii shalay aad ku eedenayseen waxa la mid ah haddii aad la timaadaan dee maxaa soo kordhiseen wixii aad ceebeynayseen haddaa idinku maanta gacanta ku qaadataan dee iyana siday u ekaanaysaa taana ka digtoonaada ayaan leeyahay oo barnaamijkii wanaagsan oo dalka hore u mariya oo mucaarid iyo qaran baled kula shaqeeyo ku tallaabsado kaasina waa iga waano waxaan dhaafayaa dhibaatooyinka maanta jira dalka Somaliland dhibaatooyin badan baa haysta waxaase ugu weynta dhaqaalaheenu waa yaryahay ilaahay wuu inoo rooya goob wanaagsan buu ina dejiyey inta adduunku u baahan yahay oo dhan baanu haysanaa baddeenu waa ta adduunka ugu saxmad badan ee caalamka oo dhammi soo maro ee dal wal oo badda cas hareeraha ka xigaaba qaybtiisa ka qaato dhaqaale ahaan inta ugu weyn laakiin inagu waynu ka qatanaa sababtuna waa khalad siyaasi oo haynu galay 60kii dadkii 60kii noolaa nin baa aad uga digay la yiraahdo Xuseen Faarax oo hees cajiib ka tiriyay umar baa looday heesta la yiraahdo oo la arki doonaa buuri idinkoo ay taal daran oo yahay khaladka waa inuu ilaa hadda sax karnaa oo 60 sano iyo ka badan marayna waana caadi talada sibiq ugu dhaaftaa tiro dheer bad ku geed ku gashaa marka Somaliland waxay ku taala badda casayd oo caalamka bartankiisa bariga dhexe ah oo Afrika la wadaagta dhibaatooyinka ka jira dalka gudihiisa waa qaar la maareyn karo waxa inagu badan oo aad iyo aad inagu batay dad badan oo aan xisbiyada siyaasadda ahayn oo aan xisbi matalayn oo haddana siyaasadda si walba uga taliya oo faraha uga gala ninka baayic musirkii dee lacag buu bixiyo isagu kororsadaa macaash buu doonayaa subax walba maxaan helaa buu ka fikiraa marka hadduu siyaasadda soo galo lagama yaabo inuu xoolihiisa siyaasadda geliyo oo dadka uu ka horumariye wuxuu u baahan yahay siyaasad u adeegta dhaqaalihiisa kaliya dadkeenu aad iyo aad baynu ixtiraamnaa ganacsatadu waa halbowlaha dalka iyagaa dhaqaalaha wareejiya iyagaa shaqo abuurka laga sugaya waa dastuurkeenu qaadanay ee ah suuqa furan free market laakiin haddii si qalacon loo isticmaalana dee wuxuu keenayaa khalkhal dhaqaalo bulshada intii badnayd oo gaajoota iyo in yaroo dheragta dastuurkeenu taa uu ka hadlaya wuxuu leeyahay waana abuurmin dad badan in yaroo hodan noqota tanaada
هي dadweynaha baxtiya dastuurka ku qoranta marka in qodobka dastuurka loo hogaansamo iyo diinta islaamka oo ay nolosha ka bixi sadaqa bixi waxa ilaahay wax ku dhibay mar walba ku jirtaa dadka wax ka sii ganacsigeenu inta badan sakadana way bixiyaa dadkana way u roogay labadaba way qabtaa wana labada lagu ixtiraamo saaxiibtinimo sako cashuur ma tahay lacagta ay diintu ku waajibisay ama sharci ku waajibiyay ganacsada waxa la rabaa iyadoo la ixtiraamayo inay sakadiina bixiyaan intii diintu ku waajibisay cashuurtiina bixiyaan inta dalku u sameeyay maanta sicir bararka jira waxa daweyn kara inay gurmad ka galaan si wada jira ganacsatada iyo xukuumaddu oo ay dejiyaan sicir bararka waayo shirkadda meesha ka sii baxay qodobka intaasan ka oran dadka madax dhaqameeda ama culimo ah ama dhalinyaro ah ee aan xisbi siyaasi afkii ku hadlay ama urur la yaqaano oo la aqoonsan ku hadlay ee qof waliba wuxuu doono u oranaya waxay dalka midnimadiisa iyo horumarkiisa u geysanaysaa dhaawac weyn marka haddii ay heleen microphone bilaash ah oo social media la yiraahdo oo qof waliba wuxuu doono ku hadlaya laba halba lagu qabayaa lagu xasilin karaa mid xilkaasi in asluubta iyo wixii qaranka xubinay ay ilaaliyaan shirkadaha isgaarsiinta ayuu ka saaray dalka wixii dhibaato u keenay afidmo ka abuuraya ee dadka isku diraya akaadkooda wax xiri kara way kala jaaseynaysaa oo xaraad ka noqonaysa xoorihiini iyo macaashka ka hesha akaadka caynkaas haddii la yiraahdo dadka dhalinyarada hadasho baalkan uu ka hadlaya lacag loogu kordhiyay markuu cid u baataba oo inta yar iswaasho inta yar iswaasho wuxuu doon lagu hadlo isagoo lacag halka soo wax soo eegay idina ila marba ka qaadaysa lacagta soo mareysay waa xaraan mareeytan heshaan ba xaraan noqon doonte halka xil iska saara shirkadaha isgaarsiintu maanta 4 sanadood dadka maanta talinaya hadda 4 yihiin ama 4 oo ay 10 sano ka weeyeen asoo noqoshada xorriyadda ama 20 sano waxaa loo baahan yahay dadka maanta xoogga dalka wada inay aad u bartaan oo xil iska saaraan taariikhda Soomaaliland waxay dhibaatada noogu timid wixii aan u soo maray wixii inaga baxay samadnimo ah oo qarannimo ah khaladaadkeenu galay tusaale waxa kamid ahaa markii ay dalka soo xoreynay ee la isku yimid waxaanu si wacan u saxnay khaladkii ay dawladii siyaad barra gashay ee dadka Soomaaliland ka horkeentay beela iska horkeentay si wanaagsan ba asan u saxay iyo odayaashii markaa ka talinayay beelaha kale dad culisiyay oo leeyahay qolada asan Soomaaliland ka baxeen kanay ka baxeen oo la foo daafacayo marnaba asan iyo cidii guddiga wahayd aanay xumaan iyo nacayb midna u qabin qolo iyo qofeed laakiin raay khalad laga dhaadhiciyay waxa loo daweeyay si aad iyo aad wanaagsan oo walaaltinimo laga qaaday hase yeeshee faragelinta hadba cid xamar ka talaysa waxay abuureen dhibaato weyn iyo hay urur kale oo argagixisada ka mid waxaan ku soo koobayaa dad iyo dalba Allah inoo barakeeyo dadka Soomaaliland hamidoobo horumarka ha eego inta isku hayaan inta isla ogol yihiin ka dhaxaysa ka badan dadkuna ha barteen taariikhda waxaynu ku dadaalaynaa inaynu xoojino nabadgelyada mudaharaadkii shalay barraad burca ka dhacay inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah ha shaafiyo gobolka iyo xukuumadaba waxaan ku dhiirinayaa inay arinta maareeyaan oo si dhab ah u xaliyaan wixii keenay dhibaatada waxaynu balana inaynu u adkaysano geediga
halgan inugu jiro xaqiijinta qarannimada Somaliland barigii hore abwaanada iyo gabayaagu markay gabay tiriyaan waa la raaci jiray waayo murtida soo dhuuxay imika waxa jirta hees la qaado oo la yiraahdo nin kasto sare kacoo seeta ila doona nin kasto sir hoosiyo dabin xirxad dabin si jeeda hadafkayga lama suurin karo iyo sadarka doodayda abaan daayir ba kulay sameeyay laakiin waxa qaada nin Mustafa la yiraahdo يعني بديادة سيدو تاريخ هالجن كوجو رمايو يسيدو ضد كوجو جريسينيو يسيدو على كل رجليه لأن يرى داير تا ويبديه أبوانا بدن عصوير رو ليرو حمبريانه هالأمور بدن رجد وربره وآدي القرن مضوعه